heshiiska shidaalka arnaag soo kortay waxa la turkigu wuxuu qaadanayaa 90% waxa la leeyahay ma baahanba warqada ku qoran tahay waa cadeen soo baxday turkiga ayaga ka hadlayaan maanta Soomaaliya waxay qaadanaysaa 5% waa run waa dhacanahay Soomaaliya hadaan nahay waa dhacanahay laakiin tusaale horta marka hore ku bilaawno kaba soo qaad adiga gurigaada waxa ka baxo tufaaxan gurigaada ka baxo qalabka lagu gooyn lahaa si uusan dhulka ugu burburin tufaax ciyaar ma qalab lagu gooyaa jirto marka tusaale yar waa ayaa tusaale fudud qalabka lagu gooyn lahaa ma heysatid qaabkii loo suuq geyn lahaana ma taqaanin wixii oo dhan nina ku yimid aniga dabaraayo ku dhahay qalabkii lagu gooyn lahaa tufaaxan qaabkii loo suuq geyn lahaa iyo wixii oo dhan aniga dabaraayo aniga ka faal qaada xitaa shaqaalihii hoosh gal aniga ku hay adiga waxa ka rabaa kaliya in 5% aqaayatid anigana waxa qaadanayaa 90% ninkii ku dhahay shanta kale oo soo hartay dad kale oo anaga noo dhaxeeyo adiga iyo aniga dalaaliina siinayna sheekada maanta shidaalku waa noocaas oo kale dib ugu soo laabana marka dawladda Soomaaliya iyo Turkiga heshiis galeen heshiiska waxa ku jiray dawladda inaysan wax tabar ahaynin Soomaaliya oo qalabkii iyo agabkii iyo shida xitaa marka ma qabno Turkiga markuu wuxuu yiri wixii oo dhan aniga keensanayo aniga shidaalka qodaayo ee Soomaaliya waxa ka rabaa shidaalkan markuu soo baxo 90 ina aniga la boodo 100% Turkiga dhahay ilaa waxa ana suuq geenayo waxaan ana qodanayo waxaan adiga marka waxa jiro heshiis lacageeda jiro oo warqada ku qoran oo aniga aan hadda naloo soo bandhigin مثلا tusaale ku siina Turkigu wuxuu yiri qodista shidaalka Soomaaliya oo hal sano qaadanayso shaqaalihii gali lahaa hawshaas cidii kafaalaqa wixii oo dhan waxa ku baxayso yiri kaba soo qaad 500 oo milyan oo $500 million ayaa ku baxayso Turkiga marka ujeedada ugu weyn marka hore wuxuu rabaa lacagtii uga baxday shidaal qodista iyo shaqaalihii oo ayaga joobkooda ay ka bixinayeen waa dawladda Turkiga horta marka hore inay soo laabato oo Soomaaliya xaq iska fariisato Soomaaliya xaq inay iska fariisato waxaan waxa la advance Allah dadka ganacsiga noocan galo way qaadan lacagtaas advance inta ay ka soo laabanayso dawladda Soomaaliya ma hadli karto marka Turkiga wuxuu taagan yahay lacagtan 5% waaba wuxuu taagan yahay naxariis adin sameeyno way سأفهمتان سؤال كله أو في عن أول عجلة سوق هذا هنا كم سوق هذا لبضة برميل وجه الرئيس شدال كصوماليا تركيا وسوقي لعكت تركيا وحقوق جدي $11 مليون صاروا يا واحد $11 مليون $90% مركز الله فيريو تركيا وحقوق هذا يا مليون يستد بقول أو كن أو دولار مليون إيه يستد بقول أو كن أو دولار بدون صومالي بحق هذا نساب بقول كن أو دولار marka Turkigu wuxuu taagan yahay lacagta horta iga baxday qodista shaqaalaha dadaalkii ilaa iga soo laabanayso waa 2 sano ilaa 3 sano ee soo socoto horta lacagtan 5% ga ku sii madadaala si cuna ayuu taagan yahay marka lacagta advance ga asaga u soo laabato wali Turkiga heshiiska waxa ku qoran in 90% gaan 90% wax alaali wixii faa'iido ka soo baxa inuu sii qaadanayo ilaa heerka uu rabo uu gaari doono shidaalka intuu u baahan yahay Turkiga inuu heli doono markaas kadib warqada kuma cad aniga heshiiska waa soo fiiriyay laakiin waxa muuqato muddo adiga 5 sano 10 sano inta u dhaxayso hadda kadib dawladda Soomaaliya in lacagtan $5 ee u noqon doonto 45% marka Erdogan caawa saasu garku xoqanaaya kulay faa'iido fadhiya dawladda Soomaaliya marka heshiiskan kulay dabaala ma aha oo way akhriyaan way ogaayeen ayaga marka faa'iido ugu jirta waxay ahayd waxay islahaayeen guul siyaasadeed ku gaari doontaan oo ah dawladda ugu horeysay ee Soomaaliya maaragtay soo saartay ama qoday shidaal heerkaas ayay ka ahayd laakiin uma maleynayeen heshiiska 90% inuu qarxayo inay ogaan doonaan anigu uma maleynayeen saasay marka sheekadu ku soo gudbay